saaxiibayaal ismaqal haboon mar kale ayaan hawada idinka leenahay soo dhawaada meel walba joogtaan halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa hadduu guulo saamaxo warbixin kooban oo la xiriirta taa aan kaga hadli doono arrimaha gobolka iyo geeska Afrika wadamada Kenya iyo waliba Soomaaliya ayaan eegi doonaa dhacdooyin madaxweynayaasha kala hogaamiya labada wadan ee jaarka ayaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xilli safarro ay ku gaala bixinayeen dhanka dibadda oo ay ku tageen Ingiriiska iyo waliba Mareykanka waa madaxweynaha shanaad ee dalka Kenya cusub William Samoei Ruto iyo madaxweynaha Soomaaliya horena mar u soo noqday hogaanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laakiin wararka iyo jaraa'idada dalka Kenya ayaa markan tabinaya warar dhiilo horleta oo la xiriirta kiiskii la soo gabagabeeyay arrimaha badda Kenya iyo maxkamadda ICJ bishii October sanadkii tagay 2021 go'aan ay ka gaartay hadaba maxkamadda hoos tagta qaramada midoobay fadhigeeduna yahay magaalada Hague dalka Netherlands ayaa waxa markaasi ay ahayd mid ay u xaqlisay isla markaana sida Soomaaliya ay ku doonaysay ay iyadu u xukuntay taa oo janjeerka dhanka Soomaaliya loo badiyay xilli Kenya iyadu marka horeba dhul ku lahayn meesha laakiin muran gelisay arintaasi si loo xalliyo amniga iyo waliba wada noolaanshiyaha dadka labada dal ku nool ayaa go'aankaasi ay ku qaateen maxkamadda ICJ hadaba go'aankaasi xilliga la gaaray waxa qayb ka ahaa Soomaali iyagu kamid ahaa garyaqaanada maxkamadda ICJ waa Cabdulxaaq oo isagu Soomaalidu ay aad u eegayeen iyo waliba Muna Sharma oo qayb ka ahayd qareennada Soomaaliya u doodaya hadaba Soomaalida ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa iyagu dunida daafaheeda meel walba ay joogaan xukun ka haya isla markaana dadaalo dib u soo nooleyn Soomaaliya ka shaqeynaya isla markaana u doodaya marka ay noqoto siyaasadaha gudaha dalka Kenya iyo waliba wadamada kaleba hadaba waxaa jirtay in arintaasi ay soo gabagabowday xilliga Soomaaliya waxa madaxweyne ka ahaa Xabiibul Malaayiinka dadka ninka ay ugu yeeraan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka oo guushii ugu weyneyd marka laga hadlayo xukunkiisii 5 sano ku dhisnaa uu ka gaaray arintaasi laakiin dhiilo horle ayaa ka imanaysa xilli waraysi uu bixiyay madaxweynaha dalka Kenya William Samoei Ruto taa oo kaga hadlay in Xasan Sheekh arrimo ay isla meel dhigeen taa oo qayb ka tahay sida wararka lagu daabacayo bogagga internetka iyo waliba kuwa kale ee la iska dhaxarko ee telefishinada taa oo lagu sheegay in arrimaha kiiska badda uu doonayo William Samoei Ruto inuu markaasi dib u soo celiyo taa oo lagu xasuusto in Ruto xilligii uu ahaa madaxweyne ku xigeen dawladii Kenyatta uu aad u dhaliilayay siyaasadda uu ku hogaaminaya Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taa oo dadka ay ku micneeyeen in Soomaaliya ay la doonayso Kenya dhulka in ay la gasho marka laga hadlayo siyaasad ahaan Soomaaliya oo loo arkay xilligaasi inay kor u soo kacayso laakiin dhiilada ayaa markan waxa ay ku foogan tahay isla markaana dadka ay aad uga hadlayaan baraha internetka Xasan Sheekh iyo go'aanada uu ka gaaro caalamka taa oo inta badan uu soo bandhigin bulshada hadaba barnaamijkeena arrimahaasi iyo waxyaabo kale oo daahsoon aan qaybta dambe idinkula wadaagi doono ayaan ku falanqeyn doonaa stuudiyana waxa igula sugan saaxiibkay Shide oo inta badan ka faalooda arrimaha gobolka iyo geeska Afrika oo aan ka wareysan doono saaxiibayaal soo dhawaada haddii aad nagu cusub tahay channelka noo subscribe gare oo muuqaalka la wadaag saaxiibada adigoo u marinaya marigaha iyo bogagga aad ku xiriidhaan muuqaalkana like noo saarayo waad mahadsantihiin haddaad hore inoola joogtay dhiiranaantaada iyo waliba ka fikir dhibashada qodobada iyo barnaamijyada aan halkan idinku soo gudbino markan waxaan u wareegayaa dhanka iyo martida stuudiyaha saaxiibkay Shide soo dhawow waan kaaga mahadcelinaa inaad maanta nagu soo booqatay stuudiyaha si gaar ah aad u aqbashay dalabkeena inaad barnaamijka nagala qayb qaadato bal marka hore xaalka guud ee gobolka iyo waliba geeska Afrika aad iyo aad baad u maasantahay Axmed waana dhawahay haddaan ku bilowno howlaha inta badan hadda inta ay warbaahintu aad u hadlayso ama meediyaha ay isula dhex wadaagayaan Soomaalida iyo inta badan dadka dalalka dariska ka xajooda ee Soomaalida iyo Kenya habo badnaata hadda warbaahinta waxa ay qorayso ama waxa uu ku saabsan yahay gebi ahaanba doodeenan madaxweynaha Soomaaliya sidii wada ogsoonaa waa ka shirki ka qayb galay wuxuu la kulmay madax aad u tiro badan sidoo kale madaxda qaaradda Afrika waxaan ka soo qaadano hal shakhsi waxa kamid ahaa madaxweynaha Kenya dalka Kenya madaxweynaha cusub Ruto Xasan Sheekh Maxamuud haddaan ku sii socdo Xasan Sheekh Maxamuud sidii la wada ogsoonaaba wuxuu ku yimid isbedel qaatay jidid iyo khilaaf aad u tiro badan oo asaga iyo dawladii ka horeysay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama ninka ay Xabiib Malaayiin Soomaalidu u taqaano
xasan sheekh maxamed sidii la wada ogsanaa wuxuu ahaa mucaaradka waaweyn ee dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo si kasta u durjir waddo kasta oo isbeddel ku imaan soo maray mucaaradyo badan ku kiciyey xisbiyo badan u maray dowlado badan u kaashaday sidaa ay tahay hadda caawa dooddu waxay ku salaysan tahay xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigii uu maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha iyo xasan sheekh maxamuud oo hadda madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud muxuu diblomaasiyadda hadda xasan sheekh maxamuud wuxuu kulamo qaatay dowladdu la soo qaatay madaxweynaha dalka Kenya waxa la sheegay inuu xiriir hoose ka dhaxeeyo oo ku salaysan xuduudaha labada dal waa Kenya iyo Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya sidii la wada ogsoonaaba muddo dheer khilaaf aad u ballaaran ayaa ka dhaxeeyay oo xuduudaha ku salaysan sida dhulka iyo berigaba ku saabsan marka waxa la leeyahay madaxweynaha Soomaaliya iyo Ruto maadaama xasan sheekh maxamuud dowladdii hadda ka horeysay Ruto iyo madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta inuu si weyn ugu saboodgareeyay ama uu taageero weyn u hayay uuna rabay inuu Uhuru soo noqdo Uhuruna heshiisyo ay gaadheen marka dadka Soomaaliyeed iyo dadka Kenyaankaaba dhammaan waxyaalaha ay dooda gelinayaan waxa waaye maxaa maadaama Ruto yimid heshiisyadii ay hore u galeen Ruto iyo heshiisyadii ay hore u galeen aandhaho hadal halmaan kuma jireen xasan sheekh maxamuud iyo Uhuru maxay Ruto muxuu ka oran doonaa وهاجك شيء واد محسن تها حكتاسي وحيابها أنا لو بدأت وحاتري روتو محاو كارن دونا هالشيء كي دبرمات كحكومة دي أهورو إسلاك جلين تا أو كسب سنة جناع سيادة حرير كلابا دل رنتي دولة عصبة يا بلاتي لكن حل جن دعوين كلسوورين يا وحي تاي إن حسن شيخ لقول قليلا يو هالشيء سادة لينك دي بدأ ما دام الدبلوماسية ده أشكتي إن حسن شيخ وسمكونا سنين محو la soo galay maxaase uu kaga duwan yahay dawladii hore maxamed cabdullaahi farmaajo xasan sheekh maxamuud sida wada ogsooneenba wuxuu soo noqday madaxweyne hore soo noqday farmaajo wuxuu ku dhaliili jiray inuu farmaajo xogaha iyo maartay heshiisyada uu arrimaha dibadda diblomaasiyadda uu ku soo galo inuu bulshada Soomaaliyeed la wadaagi jirin uu ku dhaliili jiray marka maanta waxaad moodaa arrinta inay asaga ku soo laabatay asna waxaad moodaa inuu wadada farmaajo hayo maadaama uu farmaajo muddo dheer ku soo maamulayay dalkana uu ku soo xukumayay mucaaradnimo waaweyn una arintaas waxaan hadal dhaafsanayn una inuu keenin waxaad moodaa in waxyaalo badan wadadii farmaajo laakiin farmaajo soo laysma oran karo iyadoo dadka qaar ay warbaahinta gudaha Soomaaliya ay aad ugu dhaliili jireen in madaxtooyada aysan ogoleen in si toos madaxweynaha loogu tago muuqaaladana laga soo qabtaa oo inta badan dhici karto waxyaabo oo markaas dhaliila inay soo baxaan taa bedelkeedana ay soo duubi jireen xasan isaga taa xitaa laga ma hayo xasan hadda asay farmaajo wax yarbu kala duwan حسن شيخ محمود وحوله يهي وزير كورفافين ده واسجا وحجيه سودان مدحوينها مركي سؤال لقوا يدي حسن شيخ محمود وصود إن مدحوينه هشيس وضم هشيس لسوق جلي كلامو سياسيين لا شيء مدحوينه وحاسب كهذا رك شخصيات أحد صارنا وحاجر سوق بيا وده مدحوينه سؤال لقوا يديو وحمد مدحوينها وحي بالشدة كقرصانة وصوب النجاة يجري لكن وقت فرماج هوش عسوين يجري ما نمرنا يا قرصانات أنت كليه كل دوين يا أنت أسا وهاجك أفيانك أنت بدموا الشيء لكن سي شخصية ما دام وحيابه وحاجرو قرنك وجوني أو ضدك بالشدة أي سميان وحالا ده حكسينتا بالشدة أما شعبك taa oo markaasi qaranka la doonayo in arrimaha ku soo kordho wadanka loo sheego maadaama uu yahay chief in charge oo markaasi dalka dhan ama military u weyn midaas marka laga soo tago xilligan arrimaha badda ayaa la leeyahay Ruto waa uu ka hadlay taa oo xasan sheekh uu ku sheegay in markaasi ay ka wada xaajoon doonaan taa adiga bal sidee u aragtaa yow hadda kama sii hordhici karo laakiin xasan sheekh maxamuud wax walba ka filo xasan sheekh maxamuud waa nin ruulkiisu aad u jilicsan yahay waa nin isbedel badan ku iman karo waa nin maartay siyaasaddiisu la dhigi kara caga badan inaan ku taagnin waa nin aan go'aan keligii qaadan karin waa nin si dhib yar loo bedeli karo marka hadallada Ruto ka soo yeedhay waxay u badan tahay inuu xasan sheekh maxamuud ka dhadhansaday inuuna hadda maadaama bulshada in badan isha ay ku hayso oo Soomaaliya madaxweyne ay yeelato xasan sheekh maxamuud uu yahay oo waxyaalo badan oo dhibaato badan wadanka intuu soo hayay ay ka soo dhaceen haddana la islaamo wadada cagta saar marka Ruto inuu u yar tartiibinaya laga yaabo oo dadka Soomaaliyeed inay waxoogaa yar iloobaan heshiisyada laga baqay marka ugu horeysay labada madaxweyne ee cusub ay food isku gelinayaan in arrintaas dib loo yar dhiganayo hadaladuna Ruto hadaladiisuna waxaad moodaa inuu u yar qaboojinayo hadhowna uu rabo inuu halka hawshiisa ka sii bilaabo xasan sheekh maxamuudna mar walba way u jilicsan tahay hawshaasi inay dhan loogu leexiyo وهاجك هذا يوم سين هاي كاسينا وحوها سحيب كشدة ونلا فلنقيني برامج جارة وان كجهل ليني أرمها قبل كي جيس كأفريقيا وان كوي جيني وربحين كسوكر داي مدحبينها عصبة دلك كينيا
William Samoei Ruto taa oo ka hadlay arrimo xasaasi ah marka laga hadlayo Soomaaliya taa oo ah in markaasi dib u damcinayo muran dhuleedkii badda ee markaasi Soomaaliya loo xukumay inta badan maxkamadda ICJ-na sanadkii 2021 bishii Oktoobar 12keedii go'aan ay shacabka Soomaaliyeed ku farxeen ay ka gaareen. Haddaba go'aankaasi si loo gaaro waxa u tafaxaytay qareeno kuwa xitaa oo qaar xilligan ah markaasi kuwa dhulka ka hoos maray guushaasina aan farxadeeda ka qayb noqonin, laakiin Soomaaliyeed u tiro badan oo Muna Sharma iyo waliba Axmed Qawi markaasi ninka lagu magacaabo uu qayb ka ahaa marka laga hadlayo doodahaasi. Haddaba waxa Soomaalidu ay aad isku weydiinaysaa isla markaana ay xilligan la tacajabtay arrintan soo kordhay taa oo la xasuusto in madaxweyne Xasan Sheekh uu ahaa madaxweynihii isaga dacwadda u gudbiyay maxkamadda ICJ tan iyo muddaxileedkiisii intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2017 taa oo dacwadda markaasi u gudbiyay isla markaana farmaajo u dhameystiray. Si rasmi ayaana go'aankaasi maxkamadda waxa ay ugu gudbiyeen 13 bishii July ee sanadkii 2015 xilliga oo markaasi muddaxileedkiisa ay ka harsanayd wax ka yar 2 sano oo markaa laga hadlayo sanadkii dheeriga oo loogu daray taa oo uu hayay xukunka dalka Soomaaliya muddo 5 sano. Haddaba waxaa la sugayaa isla markaana la eegi doonaa waxyaabaha ay ka yiraahdaan markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh taa oo dadku ay aad ugu dhaliilaan marka laga hadlayo hogaaminta iyadoo laga filanayay hor u socod iyo waliba in dalka Soomaaliya meel ka sareyso halkii farmaajo uu geeyay. Laakiin xilligan waxay u muuqataa in dadku ay tabayaan ninka ay ugu magac dareen Xabiibul Malaayiin Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wixii ka soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan saaxiibayaal. muuqaalka la sii wadaaga asxaabtiina channelka noo share gareeya oo muuqaalka like saara. aragtidaadana waa inoo muhiim marka laga hadlayo Soomaaliya si ay kaga maarmi karto wadamada dariska oo inta badan ay u kala dusaan madaxda maamul goboleedyada iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.